xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo mar dalkan ka soo noqday madaxweynayaal oo dhowaan muqdisho kaga dhawaaqay madal ay ku mideysan yihiin xisbiyadooda oo maalmihii ugu dambeeyay kulamo ku lahaa magaalada muqdisho ayaa maanta ka soo hor muuqday warbaahinta iyagoona si wadajir ah kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka midda amniga shirka caalamiga ah ee lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho. sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahayd ayaa sheegay in kalsooni daro laga dhaxli karo sida ay u maamulayso dowladda howlaha iyo mas'uuliyadda loo igmaday. waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dowladda u dhaxeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin. arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo. waxaan u aragnaa khatar soo waajahaysa dowladnimada Soomaaliya. sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleedyada dadkana dowladana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacaya lama habboona. sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dowladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo. taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa. waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda. mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kana mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka ee federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay in ay qabato shir ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada dalka qaarkood isagoona nasiib darro ku tilmaamay in dowladda ay luminayso midnimada Soomaaliyeed. intii dowladda Soomaaliyeed la soo dhisay arta laga soo bilaabay ilaa maanta aan joogno waa dhutinayna waxaan la dhutinaynay Soomaaliland naga maqan midnimadeena ciriiri ku jirta Soomaaliland naga maqan war walaalihi hal jiriyo oo hal waxay madaxweyne shariif waqtigu madaxweynaha waa ogtihiin juhdiga uu ku bixiyay aniga intaan taladahay ogtiin juhdi aan ku bixin mar walba dadka Soomaaliyeed aan rabitaankooda ka turjumayn oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii la isku soo noqdo rabeen annagoo Soomaaliland sida uga dhutinayna maanta marka kuwa kale in la sii cirday oo ay sii baxaan oo qaarkood aad maqlaysaan saxaafadii tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dawlad dhexe yaan diidnay shalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federalismka maanta nidaamkii federalismka waa noo shaqeylaa waan anficilaayay ko federalism yaan ka wardoonayna waa si durkeena centralized government dawlad dhexe oo xoog loogu mideysan yahay ahay wixii dhacay iyo dibkii dhacay ee kala aamin bixi dhacay wixii inta laga soo kabanay waxa la nidaam federalism oo danahana gaargaarka ah aan kala leenahay kala maamulaneen waxa naga dhaxeeyana aan dad noo maamulo u wada dirsanayna aan samaysano tiya socotay tiya dadka qaarkiis maanta waxa ka soo yeerayo in ay ka sii niyad jabayaan oo ay baleeyeen maya gadaalan u sii durkaynaayo. warbaahinta ayaa weydiisay labada madaxweyne waxa keenay in fagaaraha ay ka dhaliilaan dowladda Soomaaliya iyagoo awooda in ay ugu tagaan xarumahooda isla markaana u gudbiya dhaliilaha ay u hayaan dowladda Soomaaliya. waxay tilmaameen in dowladdu aysan diyaar u ahayn in ay xaliso dhaliilaha ay ku tuhmayaan. wuxuu yiri reer baa waxa la yiri cunug baa dhulka kala cararay markaas ayadoo la eriyay cunugii la hadlay la leeyahay war geed qabso intaan ka daba imaanayna waa moogtaa ku soo gaarayne marka dhurwaagi uu hadlay wuxuu waa hadaan geed kula leexday email qabsada yaaba waxna dhageysanayo inaan ra'yi bixino inaan tala bixina rabna annagu markii fursadna la siiyay inaan ka hadlo ma rabo markii fursadna la siiyay dawladda waxaan siinaa talaan siinay. Yusuf Maxamed Ahmed Galmudug TV Muqdisho.